xilli dowladda Soomaaliya lagu eedeeyay in ka badan 10 kun oo caruur ay geesay dalka Eritrea kuwa oo loo geeyay inay ku soo qaataan tababaro ciidan ayaa waxa soo baxaya warar sheegaya in ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Ugaas Maxamed Ugaas Abshir oo kamid ah ugaasyada ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa dowladda u hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka dalbaday inuu cadeeyo caruurta la geeyay Eritrea kuwa oo ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. kala waalidiinta dhalay caruurtaasi oo furay inay sameeyaan isku soo bax looga soo horjeedo madaxweynaha isagoo madaxweynaha dhammaada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. dhalinyarada da'daas leeg ee loogu sheekeeyay in tababar loo qaadayo oo loogu sheekeeyay in qadar la geenayo oo loogu sheekeeyay in ay eheladooda ay shaqo la'aanta iyo darxumada dishay ay nolol u abuurayaan inta waalidkoodna laga xado lagana dejiyo Asmara lana geliyo dagaal aysan aqoon iyo xirfad iyo awoodooda lahayn yani waxay la mid tahay dadkaas ka ganacsada xubnaha bini'aadanka ee inta unuga la xado ama qofka si kale loo marsiiyo dee Soomaaliya wixii ka dhacaya ama la sheegayo maanta si practical u haynaa oo dadkii waxaas laga sheegayo maanta in ay fila Soomaaliya in la gasho runtii waa wax aad iyo aad looga murgo lagana xumaado intii aan arintan hadda aan fiirfiirinayay qof oo maanta aan oran karo mas'uul ah oo ka hadlay waxa uu ka jira gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo shirkii oo waxa hadda doorashooyinka iyo wadatashiga lagu heshiinayay khudbadiis ku soo qaatay lagama hoos qaadin ilaa liqaaya ay maanta UN-kii ay soo saaraan cadeeyaan oo Aksum ay dhalinyaro Soomaaliya oo ku dagaalantay oo ku baabaaday oo halka taagan oo halka furun u tahay ay cadeeyaan nasiib xumo inteeda la eg waaye aniga horta lama yaabanin wax aan horta nimankan hadda fila Soomaaliya noo fadhiya aan ku sifeey ma garanayo aan ka ahayn in ay dambiilayaal qaran ay yihiin runtii waa dambiilayaal qaran dambi ka weyn ma jiro bal u fiirso maanta Soomaaliya ayada ciidan u baahan kala waalidiinta xanuunka ay dareemayaan waa idila dareemayna waalidiin baynu nahnay waa arin runtii tiiraaya inteeda la eg Soomaali baan nahnay ehelaan isku nahnay runtii ma garanayo nimanka waxaas ay ka suura gashay sababta ay uga suura gashay iyo bini'aadanimada iyo islaamnimada iyo wararta islaamnimada ma jirtay bini'aadanimada heerka ay ka gaarsiiyeen kaliya waxa oran kara waa dad qalato si ficil ah looga jawaabo oo ciyaalkaasi intii dhimatay waaba dhimatay Allah u naxariistay oo intii nool la soo badbaadiyo oo loo sare istaago sidii arintaasi wax looga qaban lahaa banaanbaxyo joogto ah loo kala harin waa wax noo wada yaala waa farxumo inteeda la eg inay maanta Soomaaliya ay waxaas ka dhacaan waliba dawladii dhameed ee loo ogmaday alla wixii wax ka geysan karana waxa ugu baaqi lahaa in arintaas wax laga geysto oo loo sare istaago aan hadal lagu ekaan ee ficil la yimaado oo wiilashaas la soo badbaadiyo wixii ka nool